السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام برادر إن شاء الله عبد الوهاب تيجي إن شاء الله صلاتك صباحنا الظهر ما شاء الله marka waxaa ka hadli doonaa maanta inkastoo aan siyaasadda ninka igu wanaagsan yahay waxaa ka hadli doonaa khalaasaha ka socda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeeya oo badda ku saabsan walaalkay ayaa u dhiibaya asiga ayaa wax walba socda nala socodsiin doona insha Allah ما شاء الله لما أصحابته أيدين السلام وقيس أحمد أما عمر قصيص أو تقانا ما شاء الله مالمها كله أنا وش قلتني وحالة هالكي مرة عبد الوهاب صاحب صار له سعة ميديا مالمها وحالة آد بقولك بقول أرنتا سوماليا iyo Kenya u dhaxayso taas badda taasna kulleeyto qof walba uu dareemi karaa qof walba aqli uu dareemi karaa talaasan waxay taagan 2009 ilaa hadda abtinaaw marka hadda maxkamadii heeg Netherland ayaa looga yeeray labada wadan ama labada dawlad marka shalito Kenya ayaa lahayd maxkamadu waxay soo gudbinaysay qaabkii 2009 heshiiska u dhacay dawladda Sheekh Shariif iyo Cabdi Cali Shir Maarka iyo qaabkii hadda dacwada hadda Soomaaliya ay mar labaad maxkamadda heeg uu soo gudbisay iyo waxay ka dhihi lahaayeen iyo qofka u saxiixay iyo qofka heshiis la gashay ama dawlad noqotay ama shacab noqotay maadaama ay dawlad sida sheegaysa Sheekh Shariif ay heshiis la gashay Umar Cabdi uu saxiixay shalay marka Kenya ayaa lahayd maxkamaddu way hadashay maanta Soomaaliya ay hadlaysa koodii iyo koodo buura ayay ku keen insha Allah marka maxaa natiijada maxaa soo baxay labada dhinac maanta kolleyto natiijada ilaa hadda maxkamaddu ma dhawaaqi karta shalay way dhageysatay labada waa la dhageystay maanta waa la dhageystay birita Kenya iskala mar labaad khamiista maxkamaddu way xiran tahay jimcahan hadana Soomaaliya iskale marka sidii noo sheegeen Soomaalida meesha joogto ama qareenka meesha jooga oo Soomaali u dacwoonaya wuxuu dhahay 3 bilood kadib ayaa natiijada rasmi ay ku dhawaaqi doontaa maxkamadda guul iyo gunaanadka insha Allah guul ayaan rajeynaa Soomaalidayna aan istaagna aan dadkayna dhiirigelino committee soo qoraysana qof wax wanaagsan iyo wax wanaagsan soo qor qabiil ma jiro gobol ma jiro maamul goboleed ma jiro laakiin Soomaali baa leh baddaada ilaalisa waaya hadda waxay maraysaa arinta hadda Soomaali dhexdeeda way ka tagtay waxay maraysaa Soomaali iyo shisheeye si fiican marka hadda artaan waa inaan midoonaa waa inaan dhexda u xiranaa waa inaan u midoonaa qarannimadayna waa inaan alsanaa badayna qofka maada baddiisa la haysto ama la qabsada ama la iibsada birina gurigiisa la iibsana kama hadli kartid sax hadda koor mataqaana history waxa ku bartay wadanka Greek waagi hore wuxuu ahaan jiray qabiilo u kala lahaan jiray qabyaalado mar walba isdagaal jireen mar walba dagaal dhexdooda qabiilada ka dhici jiray haday bishan isdagaalan bish kale isdagaal jireen sida ay tahay hadan waxa jiri jiray cadawiye ay lahaan jireen oo shisheeye sida Rome sida waagi Cusmaaniyiinta jiri jireen mar walba wadan kale ay dagaalayeen sida Greek iyo Rome markay isdagaalaan qabiilada cadaawada ka dhaxan jirtay oo heshiinayaan Portuguese ku qaato jira waxa ka wada hadda macnaha waxa ula jeedaa markii dad kale isdagaalayaan way heshiin jireen si wadankooda u difaacdaan markuu dagaalka dhamaado way isku soo laaban jireen wixii dhexdooda ayaga xalisan jireen pointiga waxa ula jeedaa macnaheedu wadan shisheeye markuu wax kala dhaxeeyo waa inaan midoona ilaa midoonaasho ayaa wax lagu helaa haddii macnaheedu laakiin qabiil hebel asaane kana asaane anaga dhexdeena isku maqannahay ajnabiga jaanis uu naga helaya oo dhexdeena hadda dhibaatadana haysta maxaa waa nala kala qaybi 500 oo waxaan loo qaybi maxaa la qabiil maamul goboleed ama balaan loo qaybi ani ninkaan ku maqan ana isugu maqan yani kan kale ku sii maqanahay nabad dhexdeena ma taalo waxyaalaha la yaab maanta waxa kamid Cabdi Wahaab markaan qoraalkan akhrinayay si live Facebook qof walba YouTube u fiirsanayay qofkii jaanis u heli kara mar aan salaada hor intaan aan fiiriyo mar waxa kamid qof dhalinyaro ama 6 sano ama 5 sano jira ayaa waxa dhahaya ama ku dhawaaqaya Kenya iyo Soomaaliya maxay isku haysataa صح ما أوجا مركا إن كي الصومال بدو اسكو هاي صح أما دبعت أي دح طالع أما بدي للصحيح ما أوجا ما نقول لا تنجر أما سما قفل بوح عيب والله واحد زايد لك شو وحنا وباهم هاي إنه أوجا هذا دبعت هذا هاي ست أما ذلك أما دبد إنه هاي ست ترى قاصد ذلك جودها دبك كتاجن بدي على اسكو هاي ست سياسة على اسكو هاي ست سياسة ما نقول لكن بدي على اسكو هاي ست قفل ولا يرى يوتيوب نقول كذا دي لصاق بس يوتيوب هذا الميديا حفيري إذا عاد هلا صعدة سو أوجا بس لي أما سامين أيوة يا رتوح يارها قار سياسة ده قلم لكن وحيد ذلك أما نبغى يسنا أما شيء سامينها قوية أنا سياسة هذا سياسة Soomaaliya ma kala aqaan mana kala jecli sababtoo ah waxan wadanka maamul dhan wada tuugo madaxweynaha u yaryahay u weyn yahay ilaa kan hoose kulligood waa tuugo dad wadanka inay gataan lacag shaqaysan soo wada gataan laakiin markii wadanka la dhaho wadankayga waa jecelahay ninka wadanka maamul iyo wadanka labay kala yihiin madaxweynaha hadda maanta taageersan tahay iyo wadanka labada isku mid maaha marka waxa ku dhiila hadaan siyaasadda Soomaaliya wax kala soconin
at least waddankaaga markii la gaaro beri meeshan waddankaa shisheeye ma lihid ninaa iskale ninaa dhisto waxaan quruxda badan oo jeedid so adi markaa waddankaaga ku laabatid meelaa ku laabatid at least inaa leedahay wanaagsan oo waddankayga waa dhihi kartid laakiin marka waxaa ku dhihi lahaa haddaa siyaasad soomaali la soconi anoo kale tahay aa ka madax bannaan tahay waddankaaga markii la gaaro u dhim waddankaaga qof walba siyaasadda ma dhahay siyaasadda ku taxnaaw laakiin markay dhib oo aad aragto dhibka walaalaha la qaybso ama qof siyaasadda ku matalaya la qaybso qofka muqdisho ka soo tagay qareen ku ah ku dacwoonay siyaasi ku ah ayaa Netherland ku jooga maxkamadda heeg oo dacwada ka socota ku jooga habeen imaan ku dhafray ku soo jeeda raba inuu dalkaada iyo dadkaada u shaqeeyo adina wax kala taageero committee bila taageero ku sii bisle inta bisle anagana waan taageersanahay mar walba shacabkana guul ay u rajayna Soomaaliya insha Allah badayna cidna ma qaadan karta Soomaali baale insha Allah Soomaali baale ودمينا إن شاء الله بإذن الله كريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وإذن سلام.